Welcome to Mogadishu Cooking, the kitchen for Somali delicious food. cuntada macaan Soomaalida. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waan idin wada salaamay dhammaantiin khiyaaray kusoo dhawaada Muqdisho Cooking. waxaan inoo sidaa xumus maxaa la yiraahdaa cuntadan aan imika sameynaya wax walbo aad jeceshahay ayaad ku cuni kartaa. marka xumuska sidaan u sameynaya aan isla aragno. xumuska waan kariyay, run ahaantii waan soo kariyay. waana xumuska caadiga ah. mar walba waxa wanaagsan waxa daasadaha ku jira waxa ka wanaagsan waxaad adigu karsatid oo aad ogtahay qaabkaad u karsatay iyo sidaad u nadiifsatay. markii aan soo kariyay oo aan soo miiray habeennimadii ayaan horta waxaan ku dhigay biyo, kabacdi biyihii baan subaxii ka shubay. hadhowtana waan kariyay, markaan kariyay kabacdi baastamiirka aan kusoo miiray ayaan maxaa soo diyaariyay. waxaa igu jira 5 xabo toon ah. qalaabada imika waxaan ku ridayaa yaro milix ama cusbo ah. maxaa la kabacdi waxaan ku darsan doonaa hadii la yiraahdo liin dhanaan iyo maxaa la wax yar oo khalaan isku soo dhaxay, wax yar tif yar oo khalaan ku soo daray, waxaan badnayn laakiin liin dhanaanta badan. kabacdi waxaan ku shubayaa maxaa la yiraahdaa shumburadii ma aan soo kariyay ayaan ku shubay. shumburadii iyo 5 xabo toon tahay ayaan isku dhex riday. waxa aan imika ku ridayana waxa weeye taxiinadii madibada yar ayaan ku soo shubay. ada qof walba isa qiyaasan kara kulay intaad sameysanaysay adaa garanaya, laakiin semberi taxiinada haday kaaga badato uu qaraaraanaysaa. run ahaantii waa inaad taxiinada iska dhowrtid oo aad marba aad yara eegtid. wax aan taxiina ahayna kuma darin. iyo maxaa la yiraahdaa iyo shumburadii iyo toontii iyo intii yar liin dhanaantii khalkeera isku jiraad u jeedeen ayaan ku sameeyay. waan soo dhameeyay, waan soo shiiday. step 2 ayaan u gudbayaa insha Allah. qaybta labaad markaa maxaa ka sameynayaa yogurtkaas waxa weeyaan low fat. halkan waxa igu jira khal iyo liin dhanaan aan isku soo daray. malqacada yarna waxa igu jirta milix ama cusbo. kabacdi waxaan sameynayaa yogurtka ayaan soo qabanayaa insha Allah. yogurtka ayaan ku dhex darayaa. yogurtka markaan ku dhex daro hadii la yiraahdo yogurtka iyo waxaan isku walaaqayaa liin dhanaanta iyo milixda. inta markaan isku walaaqo insha Allah waxaan ku darayaa khajaar aan soo xoqay ama cucumber aan soo xoqay ayaan ku dhex walaaqayaa. intaas markaan isku dhex walaaqo oo is dhex galaan waxaan soo qabanayaa minti ama nacnac qof walba sida uu yaqaano ama reexaan. waan jeclahay reexaan xataa in la yiraahdo ayaan malaynayaa, waa sidaan u malaynayo. kabacdi waxaad sameynaysaa waad isku walaaqaysaa. markaan is dhex geliyay oon soo diyaariyay saacatar fresh ana dhinacan ka soo saaray iyo maxaa la yiraahdaa mintigii fresh ah. waxaan noo soo qabtay salad aan soo jarjaray. waxa aan ku darayaana waxa weeyaan arabakhi maxaa la yiraahdaa ama sweet corn. waxaan ku daray liin maxaa la yiraahdaa khal iyo liin dhanaan marnaba kala reebaan khalkii liin dhanaanta ilaa markiisa waan isku soo dhex daraa. milix ayaan ku dhex daray imka. halkan waxa igu jira khajaar, avocado, tamaandho iyo basal ama yaanyo ayaa igu jira iyo avocadada iyo akhyaar, khajaar, cucumber intaba waa la dhahaa insha Allah. intaas ayaan isku dhex daray saladkiina. intaasaan is dhex gelinayaan isku dhex walaaqayaa. marka horta sideedaba saladka wuxuu ku qurux badan yahay marka waxyaabo badan lagu daro insha Allah. waxaana ku dadaalayaa waxyaabaha healthiga cuntooyinka iska fudfudud aan wax badan kaaga qaadanayn, dib badan kaaga qaadanaynin. cunto qurux badan indhaha soo jiidanaysa, dhadhankeedu u wanaagsan yahay, yacni caafimaadkaaga u wanaagsan. dadka is caateynayaan way cuni karaan. maxaa la yiraahdaa qofka raba healthy ahaan in cunto uu cuno wuu cuni karaa. marka insha Allah aan isla soo dhadhamino bismillaahi kariim. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Thank you for watching Mogadishu Cooking. Please don't forget to subscribe, like, share and comment.